إسرائيل أو waddo qorsho ay gebi ahaanba kula wareegayso Masjid al-Aqsa iyadoo runtii garab weyn ka helisa dalka Mareykanka. Warar ay soo qoreen jaraa'idada Middle Eye, Mike Huckabee oo ah safiirka dalka Mareykanka u jooga dalka Israel iyo wiilka uu sodonka u yahay Donald Trump, Jared Kushner, iyagoo si weyn ugu shaqeynaya inay gebi ahaanba la wareegaan Masjid al-Aqsa oo runtii ah masjidka saddexaad ee ummadda muslimiinta ah. Qorshahan ayaa garab weyn ku siinaya Israel, dalka Imaaraadka iyo dalal fara badan oo runtii ku bahoobay Abraham Accord ay ka mid yihiin dawlado fara badan oo Carbeed oo runtii hadda doonaya inay gebi ahaanba waxba kula wareegaan Masjid al-Aqsa, halkaasna laga dhigo xarun diimeed ee u dhaxaysa saddexda diimood ee Abrahamiyada la yiraahdo. Marka barnaamijkan Abraham Accord ee hadda xaruntiisa ay tahay dalka Imaaraadka ayaa la doonayaa in loo soo wareejiyo Masjid al-Aqsa, halkaasoo runtii laga rabo in laga dhigo inay saddexda diimoodba u soo cibaado tagaan oo runtii halka hadda muslimiinta ay u tagaan xajka Maka, in halkaasna la yiraahdo waa u imaan kartaan cibaado iyo xaj oo runtii ummadda muslimiinta ay u soo cibaado tagaan oo runtii laga dhaadhiciyo in saddexda diimoodba ay dad walaalo yihiin oo ay runtii waxa halkaas ku cibaadaystaan. Nabiyadii horena ay runtii waxa xarumo u wada ahayd, nabiyo fara badan ay runtii halkaas ka soo baxeen. marka waxaa hadda socda qorshe looga dhaadhicinayo ummadda islaamka ah ama generationada soo socda runtii 20 sano 30 sano soo socda in laga dhaadhiciyo halkan inay tahay meeshii ugu soo horeysay ee diimaha oo ay saddexda diimoodba ku bahoobeen oo Nabi Maxamed laga dheelmiyay calayhi salaatu wasalaam. marka qorshahaasi tood oo runtii la rabo muddo fog in waxa dadka laga dhaadhiciyo oo la baabi'iyo qorshaha runtii halkaasi tood hadda ay u tahay masjidka saddexaad oo muslimiinta si weyn waxa u aaminsan yihiin. marka waxa hadda la baabi'iyay waxa la baabi'iyay gacan ku haynta dalka Jordan. Masjid al-Aqsa waxa hadda gacanta ku haya oo controlkiisa iyo maamulkiisa gacanta sida weyn ugu haya dalka Jordan ama Urdun qofba sida u yaqaan. marka hadda Jordan mar hadii awood laga wareejiyay oo runtii lagu wareejiyay dalal kale oo la yiraahdo Abrahamiya, runtii waxa Israel ay kamid tahay, Imaaraadka ay kamid tahay, Morocco ay kamid tahay, Oman ay kamid tahay, dalal fara badan oo Islaam ah inay runtii ku bahoobeen. Even Sacuudiga xataa laga dhaadhiciyay Abrahamiya oo member uu ka yahay. marka hadda laakiin waa ku soo horjeestay Sacuudiga, wuxuu fahmay marka laga soo wareejin rabo dawaafka iyo diimaha Islaamka ah. mar hadduu arko Maka oo runtii waxa laga dhig Maka laga soo wareejin rabo ee halkaas laga dhigi rabo goob cibaado laftirkeeda ee waxa ummadda muslimiinta waajib inay ku tahay loogu daro faralka. qorshaha socda ay ku doonayaan inay waxa runtii ku jiheeyaan ama ay wax kaga bedelaan xaramka ama Maka ama waxa inay kamid tahay rukun kamid ah rukumada Islaamka oo arkaano Islaamka ay kamid tahay arkaanta Islaamka mid kamid ah in runtii la qafiifiyo ee laga dhigo in Baytul Qudusna la tagi karo. qorshaha ay wadaan waa qorshahaas oo diimaha Abrahamiyada soo baxay, waa saddex diimood Islaamka iyo Kiristaanka iyo Yahuudda in ay halkaas u midaysan yihiin. saddexda diimood bay halkaan imaan karaan. hadda halkaan millions and millions ay u tagaan meesha la yiraahdo Maka oo muslimiinta ah in laga soo wareejiyo loo soo wareejiyo Baytul Qudus. dad badan oo Fatikaanka dalxiis u taga in loo soo wareejiyo iyagana waxa Jerusalem. marka qorshaha ay wada waxa waa qorshahaas in la yiraahdo saddexda diimood ee Islaamka ah ee Judaismka iyo Islaamka iyo Christianityga saddexdaba waxa waa goob u dhaxaysa ay u soo cibaado tagi karaan. waxay isku dayayaan inay qafiifiyaan halka waxa ummadda Islaamka ay runtii waxa Maka u tagto xajka in la yiraahdo xajka haddaad Maka tagto iyo haddaad Baytul Qudus timaado waa isku mid. halkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyay waa halkii uu ku dhashay Baytul Laham ee Nabi Ciise iyo Nabi Muuse waa goobtiisiiba oo haddaba waxa ma taqaanaa darbiga iyo toora halkii ay ku soo degtay. marka waxa qorshaha iyo adduunka wajiga ama waxa jiheynta cusub ayaa waxa ah in halkaas laga dhigo goob tourism. markii waxay arkeen in Sacuudiga waxa millions and millions of dollars inay ka soo gasho, Roma inay millions of millions ay ka soo gasho. marka waxay isku dayayaan inay waxa saddexdii diimood halkan u soo jiheeyaan, waana ay dhici doontaa markii hadda dadkii ogolaaday Abraham Accord wax la yiraahdo oo hadda xataa Somaliland waxa loo goynaa waxay tahay in Somaliland ay ku soo birtay la yiraahdo oo runtii waxa halkaas tood hadii loo codeynayo cod looga helo. marka qorshaha socda waxa waa qorshe noocaas oo kala ah oo runtii waxa la rabo in diimaha runtii wax looga bedelo iyo qaabka waxa ummadda Islaamka wax badan waxa la isku dayay in kitaabka wax laga bedelo waa u hirgeli weysa markii kitaabka Ilaahay laabaha
laabaha ayuu ku xafidaa sida uu noo sheegay isagana ilaashan doona laakiinse hadda waxay isku dayayaan qiblada ummadda muslimiinta ay u dukato runtii waxa waa qibladii koowaad laga yiraahdo ayaa sax ah oo halkaas loo wada jeesto marka qorshahan waa qorshe fog ee runtii waxa waa Mareykanka Donald Trump iyo runtii waxa waa safiirkiisa u jooga dalka Mareykanka Mike Huckabee iyo wiilkii runtii waxa uu sodog u yahay Jared Kushner iyo Netanyahu ay ka wada shaqeynayaan iyo Mohammed bin Zayed ninka la yiraahdo Imaaraadka xukuma marka waxa waa qorshahaasi hadduu hirgalo waxay noqonaysaa caqabad cusub ee adduunka ku soo kordhay laakiinse goormay hirgalaysaa waxay hirgalaysaa generationada soo socda ayaa la isku dayaa in maskaxdooda laga dhaadhiciyo in halkaasna waxa waaye loo cibaado tegi karo oo halka ay maka ka aadaan muslimiinta ama kristaanka ee Fatikaanka ka aadaan in la yiraahdo halka waa imaan kartaan diintii ugu weyneed ama diintii ugu horeysay Muuse ee Toora halka ay joogto ayaa labadii diimoodna marka waxa waa meel cibaado marka qorshaha ay wadaan ayaa qorshahaas ah laakiin muu hirgalaya waa generationada uma hirgalaya laakiin generationada soo socda ee ummadaha islaamka ah waa ay runtii ku dhaqaaqi doonaan waa 50 sano hadda dhiman waxa ay ka fikiraan ma ahan maanta iyo wax lamid ah marka qorshahaas waxa waa runtii laga feejignaado waa wax cusub ee hadda soo kordhay waa qorshe cusub hadda waxa waa soo kordhiyeen Abraham Accord oo runtii waxa Soomaaliland hadda ay qayb ka noqotay oo Soomaaliland hadda ay qayb ka noqotay oo runtii waxa waaye si qarsoodi ah ay waxa waa u saxiixeen Ciro iyo waxa waa runtii Netanyahu marka waxa waa qorshahaas waa qorshe waxa waa halisteeda leh diintana waxa waa runtii waxa waa diin runtii Ilaahay xafiday laakiin waxa waa dagaalka ku socda ma sahlana mar hadii waxa Baytul Qudus runtii la yiraahdo waxa waa halka kaliya hadda waxa waa loo cibaado tagi karo oo saddexda diimoodba ay ku bahoobeen oo Abraham Accord ah marka la socda ummadda Soomaaliyeed taasana idinku baraarujinaya